أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan sameynaynaa extended access list standard oo soo sameynay extended haddana sameynaynaa videoga ka horeeyay qofkii standard u baahan videoga ka horeeyay ha fiirsado kaliya channelka ku jira programada kala isticmaalan iyo jarbigana channelka ku jira asna meesha ka tirsan kartaa kulli iyo jarbiga linkiisa soo yaala laakiin standardka playlist ku wada jiraan okay standard kale I mean standard oo jeeda extended access list sameynaa standard waxaan raanay close to the destination oo ahaa close to the destination oo kan extended waa close to the source started waxaan rabnaa horta bcda ay address ma leeyihiin console taabo badana bcda waa ka baxaan show ib waxaa ku jiro ib 13.13.13.2/24 space 13.13.13.1 okay kan labaadna soo kici console kan soo kicina console kan soo kicilay si aan u aragno kuwa hadda isbin gareynayo ilaan muhiimada taas waa hadii isbin gareynayaan pc4 la waxba ay furmo kan iga dami okay kan waa sameynay kan waa pc4 ay address muxuu yahay saddexdan pc waa isku hal ay address 14 waaye 14 /24 14/24 so mine okay 14/24 waaye okay double suadi 14/24 kana waxaa ku jiray 13 kana waxaa galay 14 waa markan ib 14.14.14.4/24 space 14.14.14.1 kana bc3 gana tag ib 14.14.14.3/24 space 13.14 waaye 14.14.14.1 bc2 gana tag ib 14.14.14. bc2 tag /24 space 14.14.14.1 okay marka bc1 waa inay wada gareyn karaan oo ay address kan ku jiray 13.2 ah okay pin 13.13.13.2 caadi u bin gareynaya kan bc3 gana tag pin 13.13.13.3.2 oo hay bur habit kan waxaa ku jiro standardka ku jiro waan fiirin doonaa kan imaw pin 13.13.13.2 kan caadi u bin gareynaya marka waxaa diidan beenka kaliya kan labadan caadi u bin gareynayaan
kan borhabid wuxuu leeyahay waxaa la soo geliyay hore waxaa loo soo geliyay kii halkan waxaa ku jira standard access list halkan ku jiray halkan imaad markaanaytii show run section no show run grep laga rabaa grep section access list waa kala soo martay .3 ku jira 14.14.3 kan wuxuu dhahay 14.14.3 waa ay beddelkii uu sameeyay dastarteeda ma bin kareenayo marka wuxuu dhan ka saar standard kan ka saarba xalana configure t no access list wuxuu ahaa access listigan 1 Soomaali 1 internet okay interface kan oo harsan interface ka gigabyte wahay interface gigabyte 1/0 inkastoo interface asoo laga saarin oo shaqeynayo bc3 hada tago hadeer caadi u shaqeynayo hadeer wuxuu dhahay borhabid sadu caadi u shaqeynayo Soomaali caadi u shaqeynayo laakiin sharciyan in laga saaro fiican no ib access group 1 meelay out ala socoto out aadi u yaalay elada wr leh kan waa ku daayay pc router 3 waxa ku jiraan markaan okay show run grep section access list oo mar labaad ku tijaabinaya internet waxa ku jiraan marka cancel iskala ma u baahan hadeer maadaama aan sameeyno extended waxaa laga rabaa router 4 waxaad ka sameeynaa router 4 ka gigabyte 1 kiisa aan inaga sameeyo waa isna okay router 4 waxaa la qaado waaye config troubleshooting standard hore marka uu soo sameeyay hadaa xasuusataan waxaa ku jirtay halkan marka laga sameeyo bc-gan intaan dhan waa open gareyn karaa marka laga reebo bc3 ga halkan tagi karin kaliya haddii standardkaasi troubleshooting marka sameeyay halkan aan gelino router 4 ka soo gelino kuwaani ma gudbi karaan halkan ma aadi karaan saas ay external waxaa la yiri wuxuu close ku yahay source haddii waxaan sameeynaa waa external marka okay access list okay access list hadda markaan dhahno 90 haddaan dhahno muxuu ahaa under 99 wuxuu ahaa wixii 99 ka hooseeyo standard u ahaa standardku muxuu optional aan leenahay waxaan leenahay 3 xabo deny permit iyo remark deny permit bas labadaas ay tahay ugu muhiimsan ba okay kan kala boqol iska dhig marka muxuu qaxba leedahay waxa leedahay deny dynamic aan soo gashay lagu soo darsantay permit dynamic soo darsantay markaad waxaan leenahay deny kii horna waxaan isticmaalanay deny alam su'aal marka waxaa xiri kartaa EIGRP kaligiisa waxaa xiri kartaa ESB GRE ICM waxaanoo tiro badan uu leeyahay kan kale ma leeyahay waay tir 90 dheh 90 ga noogu saaran deny dheh alam su'aalka geli waxaa la xiri kartaa bis kan oo standardka ee saddexdan ani iyo host name la waay bis wax kale ma sameyn kartid laakiin kani intaanu shay sameyn kartaa UDP goonigeed oo xiri kartaa hadaa u baahan tahay TCP goonigeed yani protocol independence multicast kan lahay OSPF wuxuu dhan waa xiri kartaa xabada oo xiri kartaa waa kan externalka saas uga badan yahay okay denied marka saadaan marka intaanu shay maadaama ay haysano IP aan ka soo dooranay anaga IP aan ka soo dooranay ramsor hadana si wuxuu ku leeyahay ani host hadda la imaado marka iyo source waxa hadda la imaana marka waxaan gelinaynaa marka koow source ga gelinaynaa source gaan wuxuu ahaa 14
okay 14.14.14.2 iska dheh pc2 gadaad waa bingareynaya soo maahan halkan caadi u bingareynay .2 space 0.0.0.0 space kii hore wuxuu ahaa haddana standardka markaan sameynayna intaana ku ekaa keliya kan laakiin waxaa lagu darayaa standard markii la dhaho si jidkii kale uu u maro kan waa in lagu daraa marka destination waa in lagu daraa numberka ugu soo horeeya waa source kan ku xigana waa destination 13.13.13. waxaan leenahay 0 maadaama halkan hal bc loo yaalo space 0.0.0.255 saasaan dhan hadeer dhinacaas waxa aadin waayo okay access list okay 100 kan labaad waxaa waaye hadda xasuustaan deny soo hormarinay permit ku xigto permit laan wax soconaya malahan ilaa kuwa kale inay gudbaan aan rabaa permit markaa dhahdana haddana intaana option ku siinaa waa tiro badan yihiin hadda anaga maadaama ib aan soo blogarayn ib aan dooranayna marka kan haddana ib markaa dhahdid wuxuu ku lahaa ani aan dooranay aniga ugu soo horeeya waa sourciga saana leedahay destinationka naftirkiisa waa in haddana aad soo dhahdaa ani yani wax kastoo dhinacaas ka imaanaya waa inaa u furtaa haddana ani kii hore wuxuu ahay hal ani ahay yani waxba igama gelin waa wax kastoo soo maraan kan saasoo ku dhamaaday waxaan leenahay marka interfaceki waxaan tegaynaa gigabyte haddana interface gigabyte 1/0 access ib access list group 100 okay kan marka waxaa leeyahay in sababtoo inuu yani gudahana laga dirayaa maadaama gudahan laga diraayo bc-gan aan blogaraynayno inuu aado halkan la diidayo waxaa leeyahay marka in waay kan in okay hadda bc2 gadaad wax bingareynaya hadda variable markaan wuxuu keeni doonaa prohibit waa inuu keena hadeer halkaas waa keenay prohibitkii uu keenay caadi u shaqeyna taas waa shortcutkiisa bc1 ka imaaw ma bc3 horta imaaw waxaa bingareysaa caadi u shaqeynaa kuwaanitan caadi u bingareynayaan halkaasoo caadi u bingareynaa caadi u bingareynaa okay bc4 ka imaaw waa inuu caadi u bingareeya asna bc1 ka imaaw wuxuu soo bingareyn karay keliya bc2ga laakiin halkan su-aala ka taalo standard pin 14.14.14. xalada 3 ka bilow caadi u bingareeyey waxaa ka dhigaynaa 4 caadi u bingareeyey waxaan ka dhigaynaa marka kii laga soo bloggareeyay 2 halkan wuxuu siinaa time out malahan prohibitkii away kan markii uu waxaan dhan uu soo maro inta markuu imaadaan la tuuraa prohibit kuma siinayo saa darteed inta laga soo bloggareeyay laakiin kan standardka haddaa xasuustaan markii kan bin halkan kasoo dhaad wuxuu dhihi jiray prohibit oo dhihi jiray malahan marka isku sidii maahan kan marka wuxuu noqonaa troubleshootingkiisa qofkiisa waa inuu raadiyaa markaas wuxuu leeyahay geedkan muxuu inta u gaari waayay bc2 uu soo gaari waayay markaas kadib rafaadkaas inuu maraa loogu talagalay kan waa ka gelisan yahay sababtoo standardka waxa uu uga awood badan yahay taasa waxaa dhiray dhinacan dhan ma laga imaan karo hadda ay bedreskan hadduu arko waa tuuraa hadduu inta imaado intuu u fasaxaa laakiin dhinacan ma aadi karti alla waa loo diiday routerkaasana balo sameynayo waxaasaytii oo dhan okay su-aal kale meesha taala haddaa xasuustaan standardka markii aan troubleshooting sameynayo intaan gelshay inta markaan gelshay bc-gan halkan ma aadi karin qofka standardka soo fiirsado hadda marka bc2 inta ma aadi karaa 11.11.1 11.11.3 ma bingareyn karaa pin 11.11.11.1 caadi u bingareynaa bc1 joogaa sorry anaa qaldan bc2 gan rabaa
PC2 ga prohibitiskii dati naga diiday oo halkan aadi karin PC1 ka aadi karin kaasaan rabnay markaan open gareyno 11.11.11.1 caadi open gareynaya .3 na caadi open gareynaya IP addresska iga qaldan umaleyna inta leeyahay consorkiisa imaam .2 inuu ku jira umaleyna kan show ID interface brief 11.2 waa soo martid PC2 imaam 11.2 kalik marka kan caadi open gareyna marka extender wuxuu kaga fiican yahay standardka inta asoo looga bilowgaray jidkaan waa mari karaa oo ku bashaari karaa laakiin inta loo gudbi karin okay so 13 karana PC2 jooga 13.13.13.1 prohibit xitaa ma tegi karo dad PC ga leeyahay xitaa routerka maartay dhinaca ma bangareyn karo godka ma bangareyn karo laakiin standardka godka waa bangareyn karay hadaa xasuustaan asna hadii aad soo sameysaan extended waa antaasaytay kullay troubleshooting ka sameyn doonaa maadaama dhowr program uu leeyahay extended wuxuu leeyahay waxaan ku soo dari doonaa extenderka asoo magac lagu qoraayo insha Allah videogan intaan nooga yahay videoga halkan nooga yahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما وارشاق لو قربا شغينا أنت كذا أسوء البينين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته